maanta waxaynu tartanka loo tagayaa Angola oo ah koonfurta Afrika oo dalalka ugu fog ah waxaanu jecel lahay in insha Allah uu ka keeno Fuaad guul wanaagsan uu ka keeno waxa kale oo mas'uuliyad ka saarantay markaa 5 milyan oo reer Soomaaliya matalaysa imika waxaan aad u xoojin doonaa baahinta gudaha oo barnaamijyada live-kana in toos loo daawado wadaan wasaaradahan oo ciyaaraha ka mid yihiin in laba qodob baasaboorka Soomaaliland uu yahay ka lagu tagayo dalalka caalamka khaasatan safarkan imika ay ku bixi doonaan wafdida tagaysa halka iyo orodyahan kuba runtii farxad weyn bay noo tahay ka xiriir ahaan inaanu maanta runtii halkan aan ku cadeyno inaanu tagayno dalka Angola annagoo u tagayna runtii tartan caalami ah oo ka dhacay dalka Angola isla markaana ay ka soo qeybgalayaan dawlado badan oo caalamka ah annaguna aanu qayb ka nahay oo taas ay cadeynayso caalamka inaanu qayb ka nahay meel kasta oo runtii tartan ku jirana inaanu qayb ka noqono ayaanu jecel lahay taasina waxay ku timi runtii markii halkan aan ku qabanay tartan caalami ah oo runtii ay maalgelisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha annagoo runtii isla fahanay agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha inay hawshaasi tahay hawl qaranka xubsu ku dhinaysa iyo wasiirkii joogay markaa oo ahaa Cabdirashiid Xaashi Ducaale Qambi oo halkan isagana aan uga mahad celinayno dadaalkiisii runtii uu nala soo garab istaagay tartan caalami ah kan ku qabanay 9 dawladood baa ka soo qayb galay Angola ka mid bay ahayd xiriirka ciyaaraha fudud Soomaaliland oo runtii aanu hogaaminayo ayaa heshiis la saxeexday xiriirka Angola waxaana xiriirkaasi ku saabsanaa in iyaguna soo casuumaan tartamada ay qabanayaan caalamiga annaguna aanu qabanayna caalamiga aan ku soo casuuno tiibay tani daba socotaa marka Soomaaliland baa markii hore ku horeysay imikana runtii inaga ayaa runtii la soo casuumay waxaanu ku tagi doonaa orodyahan Fuaad oo runtii orodyahan weyn oo Soomaaliland ku weyn ah wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo fulinaysa siyaasadda xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo barnaamijka xisbiga kulmiye iyo qorshaha qaranka waxaanu qaadanay in tartamo caalami ah oo orodada lagu qabto Soomaaliland sanadkii 2023 wasaaradda waxa ay ku qabatay Soomaaliland 2 orod oo ay ka soo qayb galeen dalal badan oo dunida ka mid ah orod ka qabsoomay bishii February magaalada Berbera oo ay ka soo qayb galeen 6 dal oo ay Bahrain ka mid tahay dalalka kalena ay yihiin Afrika iyo bishii June oo aanu ku qabanay 9 dal ay ka soo qayb galeen 7 mas'uul oo ay ka mid yihiin gudoomiye ku-xigeenka xiriirka ciyaaraha fudud ee Angola iyo Cameroon ay ka mid yihiin iyo madaxa farsamada ee ciyaaraha fudud ee dalka Djibouti waxaan uga jeednay in ay Soomaaliland hesho fursado ay kaga qayb gasho tartan caalami ah sanad walba muddo imika 10 sano ka badan Soomaaliland waxay dhinaca orodada ka qayb gashaa tartan caalami ah oo sanad walba lagu qabto mar ama 2 jeer dalka Djibouti sanadkan waxaanu ka qayb galnay 3 jeer oo 3 jeerba Fuaad yare kamid ah dadka ka qayb galayay waxaan arinta ay keeni kartaa muhiimadana u saareynaa wax la yiraahdo sport diplomacy ina aanu furo oo ay aqoonsiga Soomaaliland ay ciyaaruhu ka qayb qaataan oo caalanka Soomaaliland oo la geeyo dal kale waxa ay ka dhigan tahay wax weyn bay ka dhigan tahay maanta waxaynu tartanka loo tagayaa Angola oo ah koonfurta Afrika oo dalalka ugu fog ah waxaanu jecel lahay in insha Allah uu ka keeno Fuaad guul wanaagsan uu ka keeno guul iyo guul darraba waxa guul ah in aynu tartanka ka qayb galno oo uga mahad celinaya xiriirka ciyaaraha fudud oo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha kaashanaya inay xiriirka sameeyeen waxaanu jecel lahay inta in ka badan inaynu hadii alla yiraahdo sameyn doono ciyaaraheena kalena aynu geyn doono caalamka insha Allah bidmillahil kareem waftiga uu hogaaminayo gudoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud ee ay ka kooban wariyaha iyo sawir qaadaha TV-ga qaranka iyo orodyahankana guul baan u rajay ugu horta Ilaahay baa mahad leh mar labaadka waxaan ku amaanaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha runtii inay ciyaaraha dalka ay heer wanaagsan runtii gaarsiiyeen fursad fara badan dhalinyarada siiyeen tartano kala duwan qabteen taasoo maanta dhashay markaa in caalamkina aynu ka qayb galayno oo marar hore fara badan tartan caalami aynu ka qayb galay
fu'aad yare guul baan u rajeynayaa waxaan ku dardaarayaa un qaranka somaliland baad matalaysaa calankaaga inaad sidato markaad ordaysa kartidii iyo magaranaysa ayay waayo aragnimadii reer somaliland lagu yaqaana inaad muujiso waxaa kaloo mas-uuliyadda kaa saarantay markaa 5 milyan oo reer somaliland baad matalaysaa akhlaaqdaada iyo ciyaar wanaagaagaba runtii wax weyn bay ka tari doontaa magaranaysaa sumcadda somaliland taana waan kugu dhiirigelinaya adiga iyo guddoomiyaha xiriirka ciyaaraha fudud oo ku raacaya iyo sawirqaadahaba bulshada reer somalilandna dee wasaaradda warfaafinta u baahin doonto halkaasay kala socon doonaan xukuumadduna hogaamiyey mudane muuse biixi cabdi mudnaanta koowaad bay u tahay markaa dhalinyarada in ay sportska la horumariyo waayo sportska caafimaad baa ku jira isdhexgal bulshada ku jira maantana waa kaa ictiraafkeeni markaa ka qayb qaadanaya wasaaradda arrimaha dibaddu markay noo soo gudbiyeen wasaaradda ciyaaruhu waanu kala qayb gallay imikana diyaar baanay marka wax kasta u baahan xiriirka dalkaas inaanu kala qayb qaadano waddanka Angolana runtii aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa wadamada kale ma garanaysaa ay tartanada caalamiga ah u baahan tahay ka qayb gashaana mar kasta wasaaraddu waa idin diyaar calankan jamhuuriyadda Somaliland la ilaaha illa ku qoran weligii horta kor buu ahaanaya insha Allah tacaala laakiin muwaadin kasta reer Somaliland ama orodyahan ha ahaado ama qurbo joog ha ahaado ama qaran joog ha ahaado waxaan mas'uuliyad naga saaran tahay inaan calanka kor u qaadno difaaciisana markaa ka qayb qaadano aad iyo aad baad mahadsantihiin Somaliland sharaf ay u tahay inay dadaasho meel walba waxay ku xiran tahay cidda joogta iyo si u dadaasho haddii mas'uuliyiinta jooga ay dadaalaan waa laga yaabaa inay dhacsadaan wax badan oo inaga maqan anu beriyaan guddoomiyaha ururka Soomaaliya Somaliland ahaan jiray waxaan ku dagaalamay inaan wax la qaybsado ururka Soomaaliya waxaan keenay haweeney guud ee ururka Hargeysa waxaan kala saxaanay warqad inaan nahay counterpart laba urur oo ka kala jira laba dal oo walaala saaxiiba waxay fududeysay inaan hay'ado badan oo awal isaga soo mari jiray annaga toos noo soo xiraan aan shirarka caalamiga ka qayb galno waxaan markii dambe xubin ka noqonay ururka EAGL East African Journalists Association aan markii hore warqadaas naga xidhnay marka waxaan rajeynayaa inaydan uga harin dalkeenu kala tagnay xuquuqda leediin waa inaad xiriir walba iyo meel walba aad faraha gelisaan oo la xiriiraan marka taan aad iyo aad baan idinka hambalay sidoo wanaagsan u wadaan adigii agaasimiin guud iyo wasiirkiina iyo wasaaradaba tan kale anaga wasaaradda warfaafintu iyo wasaaradda ciyaaruhu waxay wada yeelan doonaan waxayna wada leeyihiin xiriir wada shaqeyneed oo ciyaaraha haddaan la baahinayn ummadda loo soo bandhigayn waxaan noqonayn waxaan cidiga ogeyn marka wasaarad ahaan iminka waxaan aad u xoojin doonaa baahinta gudaha oo barnaamijyada live-kaana in toos loo daawado wadaan wasaarad ahaan oo ciyaaraha ay ka mid yihiin waxaan isku dayi doonaa inaanu ballaarino janalada ciyaaraha ee wasaaraddu sii dayso oo toos u gaari doono shacabka marka wariyaha annagana matali doonana waan hambalyeynayna sidoo kale fu'aadna waanu sii duceynayna waxaan leenahay ilaahay maaragtay goobta kuma fashiliyo sida agaasimaha arrimaha dibadda uu sheegana inaadan xanaaqin un baa loo baahayahay oo aad dabeecad wanaagsan meesha la tagtid guusha ilaahay baa haya waad gaari doontaa maalmaha ka mid ah laakiin inaad qarankaaga matashid ood sharaf kaga soo noqotid unbaa muhiim inaad adoo sharaf leh oo maaragtay aan meesha ceeb kala iman aad soo noqotid baa ka muhiimsan inaad lambarooki noqotid insha Allah lambarood noqon doontaa waxaan u mahadcelinayaa una ducaynayaa orodyahanka Fuaad Siciid Cali oo aan duco iyo bogaadinba isugu darayno iyo dardaaranba inuu ilaaliyo etikiskii iyo akhlaaqiyaadkii Somaliland lahayd farxad weyn bay ii tahay maanta inaan ku soo beegmo muddo dheer ka bacdi inaga oo in badan ictiraafka raadinaynay inaan wax badan ku guuleysano khaasatan ay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaruhu ku guuleysatay inay orodda caalami ah ay keento oo laga shaqeeyo cid kastoo ka shaqeysay ama qoladii wasiiradii iga horreeyay ha noqoto agaasimaha guud ha noqoto maxaa guddoonka xiriirka ha noqoto aad baan u bogaadinayaa wayna mahadsan yihiin waxaan bogaadinayaa cid kastoo qarankan wax ku darsata oo runtii jecel inuu meel gaadho maanta farxad weyn bay ii tahay in hadafkii iyo ujeeddadii xukuumadda uu hogaamiyey mudane muuse biixi cabdi madaxweynuhu iyo barnaamijka xisbiga kulmiye intuba ay gaadhaan guul ah inay
dunida si bilateral ah ama multilateral ah ay ula yeeshaan xiriir caalami ah way ugu horeysatan aynu maanta u fadhino madashan runtii farxad weyn bay taasi tahay waxaan jecelahay inaan dadaaladaasi laban laabno si kordhino waxaan kula dardaarmayaa kooxda halka aadaysa iyana inay dadaal fiican muujiyaan ilaahayna uu ku guuleeyo hawsha ay u tageen waa hawl adag dadaal badan u baahan annaguna waxaanu tabantaabin doonaa wax kasta oo nalooga baahan yahay tashiilaada aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaan madasha iyo muxuu ahaayay ka soo qaybgalayaasha iyo hawlwadeennada iyo cid kasta oo dadaal ka geysatay in barnaamijkan uu hirgalo halkan soo gaadho farxad ah in laba qodob baasaboorka Soomaaliland uu yahay ka lagu tagayo dalalka caalamka khaasatan safarkan iminka ay ku bixi doonaan wafdida tagaysa halka iyo orodyahankuba waxaa kale oo xusid mudan in calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka dhex muuqan doono lagana taagi doono muxuu ahaayay fagaaraha lagu ordayo ama la isugu imanayo wadamada ay isugu imanayaan wadanka la yiraahdo Angola marka arintaasina waa guul weyn oo la gaadhay waana si laban laabi doonaa inaan meelo badan uu ka muuqdo calankeenu iyo baasaboorkeenaba ku soo dhawow suuqa Sambaysi oo kan ugu ballaaran ee isku xidha qaaradda Afrika iyo suuqa adduunka Sambaysi waa suuq casri ah oo adigoo gurigaaga jooga kuugu keenaya wax kasta oo aad ka dalbato website-ka sambaysi.com waxaad si fudud wax uga iibsan kartaa website-ka Sambaysi adigoo adeegsanaya Mastercard, Visa Card, Zaad iyo iDahab la jaanqaad dunida casriga ah ee dhanka internetka u wareegtay sidoo kale waxaad si fudud uga dukaamaysan kartaa abka cusub ee Sambaysi adigoo kala soo degaya App Store iyo Play Store